مدن قدومي أفضل كاس يو ديل كاس أنت بصح واي واحد جرواي ديل كأنا جيسنا لكن ولا ديلي ولا دعي وانا لا أفضوبي ereyadiisii ugu dambeeyay waxa ay ahaayeen macaamiil ayaa ii taagan ee ii soo xawil dhammaan lacagaha USDT ee aad heli karto waana saacado kadib markii lagu baahiyay gacanka ciidanka maqnaashiyaha ganacsada marxuum Abuukar Axmed Kaabax waa ku diray USDT badan ma wahaayban iyo 300 amal ay ugu jirtay oo dira waxay sidoo niidin macaamiil ay taagan ay waa dira waajifina hada dira baafinta hay'adaha amniga waxba uma tarin ilaan taliyihii la weydiin lahaa ayaa marxuumka uu jeebeysan yahay indhahana waxaa kaga xiran cimaamada mid ka mid ah askartii aan sharciga ahayn ee la socotay taliyaha waxaa laga wariyay ceelkan iyo geedahan lagu dhex tuuray meedka marxuumka erey ay ka mid yihiin waa ku daayay tani miduu ka kacaya ma aha iyo armuu igu soo noolaada waana la wada dhaansan yahay oo dhalooyin qamri ah ayaa la isku mootiyay catowgay marxuumka haddaba aan isugu kiin xiro silsiladan imtixaan ilaa imaaraadka shaqaalihii iyo wakiilkii shirkadda Yigis LTD Dubai Liibaan Maxamed Cumar kuna isticmaalo dukumeentiyo kale sida baasaboorkeeyaan Liibaan Maxamed Axmed ayaa ahaa hagaha shirqoolkan ku soo dhamaaday fadeexadda iyo fashilka laakiin qadarka seeriga go'an ee waqtigiisii dunida uu ka kor dhawaaqay marxuum ganacsada Abuukar Axmed Kaabax 26 Diseembar sanadkii tagay ee 2023 ayay Yigis u dirtay warqad kalsooni kala noqosho ah dhammaan bahwadaagta shaqo ee suuqa crypto waxaana warqadaasi ku daabacnaa ogeysii shaqo ka joojin ah inuusan matalin Yigis Liibaan Maxamed Cumar bedelkiisna waxa ay shirkadda siisay doorkaasi marxuumka xilligaasi Liibaan waxa ay shirkaddu ku lahayd $7389 inta kadib Liibaan waxa dhacday in uu maalinta ka dambayso shaqadiisa culays ugu sii noqonaysay marka inta aan dareelay waxaan ku qasbanaanay inaan ka fikirno hal kale xilligii ugu dambeeyay marka oo shaqadii aad u xumaatay waxaan dirnay yarkan walaalkay dhiman doona Abuubakar Allah naxariiso yar kale oo ka sii yara tiro bilal leeyahay inuu dhashay isagana shirkadda kamid ahaa isaga waxa uu dirnay Dubai waxaan ku leeyahay balniyaha caqabadaha jira soo qiimeeyay maxay tahay markuu meeshii tagay caqabadii soo qiimeeyay waxa uu soo baxdayba ninku inuu yahay mid yaani mas'uul aan qaadi karin wax ku dheel ah waxyaabaha isdaba mariyay diimo badan lagu haysto lacagaheena anaga aan lahayn mas'uulka uu nooga ahayn ku takrifalo oo isticmaalo shaqooyin kale dadka kula macaamilo reportkaas aan helnay yarka walaalkay markuu soo laabtay automatic waxaan go'aan ku gaarnay inaan bedelkiisa u dirno yarka walaalkay dhiman doona Abuukar Allah naxariiso ayaan waxaan u dirnay Dubai xafiiskeena qaybtaas aan u wareejinay markii uu tagay oo isbuuc uu joogayba bamba qaraxday waxyaabaha dhaca waxaan ka wada bamba qaraxday yaani waxa yimid ku dhawaad 12 qof oo magaceedu kala macaamilayay oo lacag uga qaadanay oo kula shaqeynay oo magaca company isagoo isticmaalo mas'uuliyadda sheeganayo ayaa nala soo xiriirin waxay leeyihiin hantiyan naga maqan ku dhawaad 400 kun ah dadka qaar koor codadkii noo soo duubayna hayna ama iyagu Liibaanka la hadlay ama anaga la hadlay arrintan markay dhacday waxaan go'aan ku gaarnay aan sameeyay wax la yiraahdo statement aan la wadaagay dhammaan dadka noo yaqaanay oo shaqo wadaag ahayn ama shirkadaha kala xawaaladaha ama bangiyada ama dadka sariflayaasha ah oo lacagaha dahabka iyo macna dirhamka isku bedelo iyo dollarka Dubai base kule inaan u dirno notiisyo inaan mas'uulka ahayn ka waxa dikada ka yimaado taabkay dhacday isku daygu waa sameeyay wuxuu ahaa ninkaasi isla Dubai soo joogo yarka walaalkay dhiman doona Allah naxariiso xafiiskii furihii qasnada kala wareegay isagoo xafiiskii qasnadii oo furan laakiin lacag 100 kun ah ee dhex taalo ayuu yimid lacag dirham oo 100 kun u dhiganto ayuu xafiiskii yimid xafiiskana waxa qayb ka digan nin dheeraad Xasan Dhaqane oo Liibaanka ay eeyeen isagana oo xafiiska waa wadaagna share ku ahayn 50-50 ayaan koos ugu bixin jirnay ku shaqo jirnay lacagta meesha ka qaatay 100 kun yarkii walaalkay Allah naxariiso ku soo laabto lacagta waa wada lacagtii ay qaatay Liibaanina xafiiska lacagtii qaatay والله هذا من اللي بقى عكس سوق قاعدتي ورني وحبا يستاجي ونسكو حالنا يا وقت السي وكوسو علينا هذه بدو كله شم على نحن على سوق قاعدتي لعكت إنه دب وجهله أنت يا أخوانك وحرايا وحسنها المسؤول دول دي بي هضيعين aniga oo shirkadda mas'uulka ah inta kale uu soo sheegay intuu kiiska ku jiray Liibaan oo ka xun eedahaasi ayaa u kuba gastay dhaca iyo suuq ka saaridda shirkaddan
waxuuna markiiba soo wargeliyey wakiilkiisii xamar dhamma cabdifitaax maxamed xasan qoslaaye taliyihii hilwaa oo ay xagga hooyooyinka ay isaga xiran yihiin. waxaa bilowday 31 Diseembar 2023 ilaa habeenkii geerida ganacsadaha ee 21 iyo 22 February 2024 fududeynta taageero dhaqaale oo wadar ahaan gaaraysa ilaa $935. waxa uu u sheegay in xamar uu soo galay maamulihii lagu bedelay 12 February 2024. 14 February 2024 waxa uu qoslaayay soo tolay 5 maaskara ah oo ay ugu horeysay noloshiisa inuu xirto. waxa uuna ku bixiyay $25 sida tixraaca CCTV iyo dhaqdhaqaaqa nambarkiisa gaarka ah ku lifaaqan. 12 Febraayo markuu soo laabtay 14 Febraayo 2024 wuxuu soo toshtay maaskarii wajiga lagu xir lahaa. sheekada meesha ka bilaabay waa meeshaas. 14 Febraayo 12 Febraayo waxa imaaday marxuumka. 14 Febraayo shaqada ayaa bilaawday. waa kana mar asoo harqaan ku yaalo xamarweyne tagaayo gaarigiisa lana heshiiyahay. tarashankana soo bandhigi doona. wuxuu gudoomiye muuqaalkan waa gaarigiis waa kana gaariga bareemiyada cadaanta oo maantoon aan sheegeen waa tan gaarigaas bareemiyada waxaa la saaran gaariga eedeysana qooni. halkan ayaa waxa ka soo baxaya ninkii dawaarka iska lahaa uu tagayaa waa kaas uu leeshiinaya. marka waxa lagu heshiinayaa maaskari wuxuu u tuuray $15 ayuu u tuuray. saacadu waa meeqo 14 bishii 2024 5 saac 57 daqiiqo kor fiiri waa kaamiradi isla waqtiga sheegaysa waa 14 bishii 2024 oo 5 saac iyo 57 daqiiqo iyo 17 second waa la heshiinaya. contractiga ayaa socdo waxaana lagu heshiinayaa maaskari marxuumka lagu afduuba lahay. wadanku waa kaamirooyin laamaha amnigu waxay ku dadaaleen meel kastoo la maraayo inay kaamir ku xiran tahay. waa ilaahay xamdigiis eedeysana lama ogaaleen. heshiiskii ayaa socdo contractigi waa uu dhamaaday. eedeysanu sidaas ayuu ku qulqulay. kabacdi uu soo laabanaya. markuu soo laabto wuxuu qaadanayaa wuxuu tuurayaa lacag $10. waa tana markuu soo laabanayo waa 7 saac 22 daqiiqo isla habeenkii waay. dawaarku waa la xiray laakiin lacagta oo tuuray waa gaas lambarkiisa 551 asiga iskale hadda la weydiyo asiga iskale asigaan u tuuray isla hadda la weydiyo asiga goobjoog nambarka oo lacagta ugu soo dhacdo waay. wuxuu u tuurayaa dawaarkii uu ku tolnaay maaskaraha 5 xabba ayaa lagu heshiiyey $25 laga rabaa. $15 ayuu u tuuray markii orderka uu dhiibanay oo laga qaadayay orderka waa lagu sameeyay intaas tuuraale. $15 ayuu tuuray markuu soo laabto 7 saacina ee tahayna wuxuu tuuray $10. meeqa isku tahay $25. 25taas waxa loo tuuray mu'amaradii iyo dilkii afduubkii dhici marxuum Abuukar Kaabax. yaa tuuraayo asaga intuu ka tuura nambarkiis nambarkan yaa waay asaa iskale intuu ka diiwaan gashan yahay akoonka lacagta soo dhacdo waayaba kees kaloos. kabtan cabdifitaax maxamed xasan qoslaaye waxa uu isku hoolay helista macluumaadka marxuumka. waxa uu kaashaday xasan maxamed saciid xasan dhiidhiin oo ah wan exbidla suuqa online-ka ku jiro. waxa uu keenay in haariyartiisii hore uu marxuumka ku bedelay saaruf. waxa uuna xasan fariisiyey xogta marxuumka. hawdkaas luuqaasa ugu jiraa marka hadda shidaal aan doonaa waa soo baxay adinka idin sugayaa oo ku tusaa luuqa ku jiray hadda jidka markaa ku soo dhacaa ku tusaa asagii marka hadda soo dhaqaaqay jidda gaarigiisa waa kaas ani marka luuqan aan ku jiray hadda soo baxay sumarkii gaari maragtaa gaari waa kaas hadda luuqaas aan ku jiray luuqalkaas gaarigina waa kaas guriga hor yaalo markaan tago caalamada asaga iyo hube. xasan maxamed saciid xasan dhiindhiin waxa uu abuuray akoon loogu talagalay qorshaha lacag dhicista. waana farsamayaqaan loo adeegsaday ka shaqaynta arrintan. akoonkaasi waxaa sumad looga dhigay magac dumar oo aan raad lahayn ifraax axmed wacays. taariikhda 15 February 3 cisho kadib imaanshihii marxuumka. ka hor alila wadaago hal ii sheego akoonka waa sameeyay oo waxa la yiri akoon barafagti rabnaa
oo waliba qaab balaag listiyo dabagalnay nin baan rabnaa inaan lacag ka qaadano akoonka noo sameeyo akoonka horta sidii waxay dhahay aqoonay taliya qoslay akoonkii aniga waliba seen bari mar walba taliya wuxuu marsinay dhinac aqoon u soo maray waasixna si caadi marka u hadalno qoona saxna mar walba marka asoo ugu daba xijinaayay waxa dhacday marka macnaa akoonkii sidii aan ku sameeyay waa u soo diray akoonka waa sameeyaan marxuumka oo aan wax walwal ah ka qabin taliyaha degmada uu ku nool yahay si dhowna ugu gacan furan marka loo fiirsho dalabaadka lacageed ee uu ugu shubay nambarkiisa gaarka ah ayaa kala wacay qoslaaye 19 February oo qarax dhacay wadada u xirnayd si uu u sii daayo iyo 20 Febraayo oo ay taraafikadu ku haysatay Tirismataale labadaba qoslaaye waxa uu arkay fursad dahabi ah oo kaalmo dhameystir u ah dalabka hor yaalla ee ah ka taqalusida marxuum ganacsada Abuukar Kaabax midna gudoomiye arxan laawga horteena fadhiyo qarax ayaa waxa dhacay 19 bishii 2024 maalintan ay ahayd inuu ka boolis ahaan gurmado meesha waxa ka gurmanaya milatarigi asaga la sagay ayaa ka gurmanaya meesha halkii ay ahayd inuu ka gurmado ayuu wuxuu raasanayay marxuumku raasanayay marxuumkii jidka ku xirmay waqtigan ayuu wacay markuu wacan wuxuu ku dhahay inuu halkaas qarax ka dhacay dad masaakiin ah ku baabo 10 qof waxaan ka rabaa in ay iga deeso walaalkaygiyo halkii ay ahayd inuu ka daayo wuxuu yiri meeshaad ugu sug anaa ku imaanayo meeshaad ha ka tagin anaa ku imaanayo waxa uu leeyahay waxa waaye inuu xogta iyo gaariga uu wato uu helo bas wax kale ma uma socdo dhaawacyada masaakiinta wuxuu u socdaa oo raba in uu helo uu ilka helo ninkaas gaariga uu wato oo intaas uu daba joogo 12 Febraayo ilaa 19 asigoo raadinaya macluumaadka uu keelayo mudane gudoomiye garsooryaha maxkamadda sharafta leh eedeysana ayaa mar labaad lagu dhagay waxa ku dhagay qolada taraafikada Tirismataalayaasha ayagoo ku dhagan ayuu wuxuu wacday ileen taliyii degmada dhan oo mas'uulka ka ah war taliyo maanta ifro halkaas Tirismataale ay dhigiin iyo imaw taliyii laga rabay inuu ninkan ciidankii u dhaxdhaxaadiyo maadaama mas'uulka degmada uu ahaa muxuu sameeyay gaarigiisa dhexdiisa ayuu ka dhax sawiray taargada gaariga marxuumka ileen wuxuu raadinayay marxuumkan taargadiisa waana waxyaabaha qofku lagu dabageli karo marxuumka taargadiisa ayuu sabirtay kadibna uu gal goormo sabirtay waa kaas wuxuu ku qoran tahay 20 bisha 2 5 saac iyo 10 oo sabirtay markuu sabirtay kadib maxaa dhacay taliyaha ayaa teelkiisa gaarka ah ku sawiray nambarka aqoonsiga gaariga ee taarigada marxuumka waxa uuna ugu dambeyn habeenkii 21aad ee February ku soo dhacay shabaq howlgal ah oo loo sameeyay marxuumka waxa loo galay wadada laakiin isfaham waaga askarta iyo taliyaha waxay sahashay in gacantooda uu ka baxo Cabdinaasir Yuusuf Kaabax oo la ilmaadeer ah marxuumka 4 saac maray tahay aan banooni salax ka soo baxnay waxaan u soconay xaafadeena oo ku taalo masaajidka Alidaaya waa soo baxnay aniga oo Abuukar Allah u naxariistay xaafadeena soo aadnay waxa ka soo leexanay masaajid isgoyska soos ka soo leexanay Shaleem Cabdiyeel marayno waxa waaye wiil Cabbaas la dhaho oo cabitaan leh waxaan ka gadanay cabitaan furlaato iyo cabitaan kale oo yoogad ah kadib maray ay tahay 4 saac iyo waxa waaye 45 daqiiqo meelahaas waxaan ka soo tagnay Cabbaas marayno masaajidka Orfane waxaan la kulanay askar wato dareeska booliska kadib waxay sameeyeen aniga ma arkayn marka hore Abuukar Allah u naxariistay asaa arkay kadib wuxuu dhahay gaariga marka hore isbiido ku waday uu istaajiyay gaariga kadib wuxuu dhahay ana waxaan dhahay gaariga maxaa u istaajisay kadib wuxuu dhahay askarta ma u jeedin miya macnaha aniga askarta marka hore ma arkaynin saan marka ay ugu dhuftabo waxaa dhacday in labada daaqad oo gaariga aniga asiga aan ka saarneen aan ka dijiyo oo aniga dhinac la dijiyo asana dhinac la dijiyo kadib aniga dhinac markii la dijiyo jilbaar markii la dhigay gacmaha kor u taagaa la dhahay saanan dhahay macnaha kadib waa istaaga la dhahay dhinaca kale la soo mariyay waxaan arkay Abuukar oo jeebo gacanta loogu xiraayo oo jilbahan dhulku yaalin
kadibna cimaamad wejiga loogu xiraay aniga meeshaa fadhiisan leedahay waa isag fadhiisanay gacmihii qaabka uu abuukar u qabtay saan jeebada camalaha saan u qabaa leedahay markaan u qabtay abuukar markii ka dhammaadeen oo jeebadii ku xireen cimaamadii ku xireen iska abuukaray wadeen macnaha gaarigay geliyeen anigana waxaa leedahay istaag raaca iyadoo waxba liigu xirin jeebo markaan wax yar daba isaan u istaagaba askari kale oo meesha taagnaa gacantiga soo qabtay wuxuu dhahay dhinacan ka bax dhinac oo wadada ugu xiran yahay dhagaxa dhinacaas ka baxana ma soo fiirin kadib aniga dhinacii aaday gaariga waxaa waaye askartii way galeen waxayna ka baxeen dhinaca wadada dhagaxa ugu xiran yahay maahane dhinaca kale oo xaafadaha ay ku degteen macnaha mar aan laamiga markaan dhagax dhaafay aan waxyar gadaal soo fiiriyey gaarigoo meesha kasii degaan arkay waxaa waaye kadibna waxaan wacay marxuumka hooyadiis maxamed cadaawa cali iyo yaasiin cabdi jaamac oo midkoodna diiwaanka ciidanka ku jirin iyo gacanyaraha taliyaha debla bool maxamed cabdi maxamed qoone ayaa mid kastaahi doorkiisa habeenkaasi uu ku faahfaahinaya madashan garnaqsiga ah ee garsoorka ciidamada marka gaariga imaaday gaari markuu imaado qoriga hore kala istaagay kula booday waa istaagay marxuumka markuu istaagay uu la degay marxuumkii wuu fariisiyay wiil kale soo degay dhahay waa soo degay gaarigu la soo wareegay fariiso halkaan fariiso yiri fariistay midka marka jaabo gacmaha uga xir aniga waa soo wareegay dhinacaas ka soo socda moogtahay gaari soo wada leedaane yaasiin dhinaca kale gadaal oo isna ka soo socda oo gaari meesha ka yimid xagiis waa soo socda aniga gaariga soo wada leedahay aan soo galay ilaa marxuumkii waa dhulku fadhiyaa moogtahay inuu markaas oo marxuumkii la jabeeyay arkay aniga gaarigan galay marka gaariga markaan galay qoone cimaamadii qorta igu xirreed uu dhagay anigana u sii daayay cimaamadii indhaha uga xiray oo wata ma faham yaasiinoo gacanta u taagay yaasiinna kii kale inta ka baxo ma faham saas darteed aniga gaarigan soo waday gaariga taliyaha hor kacay annagoo daba kacay luuq askamaniya istaagnay xasan dhiidhina la waco imaaday afka lagalama hadlin barnaamijka markii hore annaga ogaal kuma ahayno gaariga soo wada aniga la dhahay yaasiinna ninka soo wad wixii kaloo la soco soo wad lama dhig ma faham aniga gaarigan soo wad la dhahay yaasiinna ninkii gacanta loo taagay gacanta lagala hadlo cawamaduuna waa taa gacaha ku yaqaana qof bilaadana inta ka baxo dhaa ninkii uu iska daayay ma faham ilaa ninkaan ninaa taarigad u ahay oo asaga uu aqoonsanaayo la degay mugta ninkii watay oo gaariga saartay saasaan ku baxnay luuq askamaniya istaagnay xasan dhiidhiina la wacay oo taliyaha markaas qoona waca gaarigana laba taarga meesha uga furay laba taarga meesha looga furay taliyaha iyo qoone ogaan yaasiin waxaa la yidhi gaariga taliyaha hor istaag mootooyin iyo wixii soo gala luuq celi xasan dhiidhiina imaaday gaarigu soo galay u banaya la yidhi xasan dhiidhiin gaariga taliyaha soo booda wuxuu yidhi ninkaan inuu isfurto ma rabee iga deji gaariga waa la dilaa iga deji yiri gaariga waa la dilaa inuu isfurto ma rabee taliyaha dhahay ma faham qoonaa soo booda dilkiisa ma rabo yiri waa iska dayaynaa gaariga iga deji aniga waa dega marka intaas marka maraayo dhulkan u degi intaan ka ahayn dilka aniga inaan gacanteeda ku geysto aniga dilkaas gacanteeda kuma geysanin hubkaygana kuma geysanin qora aaka fadhiisa aan watay hal baalota hadday ka dhacday waa la ii maxkamadayn karaa hubkaas bastoolada ah aniga ma wadanin kuma qornayn shaqo kuma lahayn waxna kuma dilin waxbaan ku dilina ma dheh waxbaan ku dilina ma dheh bastoolada taliya qoslaya shaqo mudane gudoomiye afduubkaas iyo dilkaas intaba sax waaye wax jira waaye dilka annagaa geysana laakiin aniga gacanteeda kuma geysanin saddexdeena askari nin kamiduna gacantiisa kuma geysanin hubkiisana kuma geysanin waa kaas walaa wax mashruucan wada gudoomiye ma aqaan hadda mashruucan wax wada aqaan mali waxna aqleen oo ninka sii day qooni ugu la dagaalani wiil kale aan sii day ugu la dagaal qooni marxuumka iyo gaarigiisaba waxa uu u gacan galay qoslaay iyo kooxdiisa waxa uuna kala safray degmadii uu taliyaha ka ahaa marxuumkana uu deganaa wixii xawaaro lagu socdaaba waxaa la iska furay aqoonsiga gaariga ileen taliyaha awood ayuu u haystaa
maqalka gacanka loo siiyey u adeegidda shacabka waxa uu marba meel ka dusaa iyo wixii su'aalo uu hubiyayaasha amniga kala kulmay darajo taytal iyo CID-da ayaan eedaysanahan u wadaa ayuu ku dhaafay mana jirin su'aalo kale oo la hor dhigi karo sargaal labis ciidan gacan iyo xukun sharciyadeed haysto aniga edikaar u dhiibo checkpointka markaa marayna wuxuu yiri edikaarkaas waxaa u geeda ragga laakiin ciidanka nabad sugidda xagga fadhiya nabad sugidda markaa u geeyay soo socday dhahan laba gaariyaan nahaya waana nagu imaadeen baabuurta isla markiiba waa nagu imaadeen markii nagu imaadeen waxaan istaagnay checkpointkii iyo askar kale oo boolis ah dhinaca kala fadhiyeen askartii booliska ahayd oo la istaagay taliya layrka dhaxaw shatay yarkaan asoo indhaha ka xiran oo gaariga saarnay marxuum waxa uu yiri marka eedeysane aan CID u wado maxbuus aan wadaa gaariga dambana yar aniga ila socda ii wada waa gaarigii ka maxbuuska taliyaha maxbuus CID loo wado inuu yahay أو كم مرة جاكبوينت كاس وارلافن كبعدنا جاكبوينت كلام عنا عرب حسن محمد سعيد ayaa furaha gaariga marxuumka kala wareegay maxamed cadaawa cali markii la marayay shir kale wixii la guureeyaba waxa laga leexiyay masjidka afarta minaarad garas baalay waxaana indhaha looga furay goofkii lagu furan lahaa loogana tagi lahaa qolofkiisa si aan baraq iyo ruux loo helin raadkiisa marxuumka waxaa lagala degay akoonkiisa gaarka ah $10,200 mar maadaama ay saacaddu ku sii siqaysay 9 saac habeennimo ma jirin qof uu ka helay caawinaad lacageed dhammaan xiriiradii uu sameeyey marka laga reebo $300 oo loogu diray USDT ma jirin wax kale uu ka helay waxaana ehelka iyo saaxiibadiisa ay haysteen xogta maqnaashiyaha wiilkoodii marxuum Abuukar rafaad badan kadib waxaa wadaagayaashii dhagartan ay ku dhammaysteen in adduunka ay ka safriyaan saaxiibkoodii marxuum Abuukar Axmed Kaabax oo maqanihii horjoogaha u ahaa kooxdan uu ugu jira qadka dhammaan fulinta hagardaamooyinkaasi silaca dhaca iyo dhimashada ah wadada dheero x aado blacksan ku dhacnay warshada caanaha yalkaas iyo maaragtay daynil xaggida u leexna hanti dheer x xagalnay gaariga markii meesha darbiga hormuud agteeda aan dhigaaniga kabacdi taliyaan furo ku wareeji gaari barimis oo galay sidii aan ku raacnay meel gadaalo oo hoodahan tagnay yarkii la soo dejiyay lacag keena la lacag laga rabaa sidii loo barbaarayay lacag $1,000 oo taleefanka ka sheegay $1,000 markuu sheegay $1,000 laga diray lacag liibana markii qadka ku jiro wuxuu leeyahay ninkan lacag wuu hayaa suurtagal ma ahan lacagta laga qaado liiban qadka kama baxo oo ku jira online waay kadib marka waxa dhacday in ninkii cadaadis la saaro oo taliyaha madax u galisho la cadaadsho lacag taleefano wacay taleefanadii taleefanka waca marka wuxuu yara wuxuu soo diray lacag $300 laga diray liibaan wuxuu leeyahay markaas mar walba ninkan lacag uu hayaa laga qaado kadib adi waqtigii dhamaaday waa soo baxnay area kala imaanay anu xaafada Garasbale aad uma kala aqaan taliyaha iyo waxa degay iyo qoone waa baxeen meelay soo wareegeen oo nagu soo laabteen gaarigan wax yar soo dhaqaajinay kadib yarkii marxuumka la soo deg gaarigiisu geey qoona Allah ninka wad gaarigiisu geey anigana gaari kama deegirta Allah kabtan Cabdi Fataax Maxamed Xasan Qoslaaye askar gaari telefoon shaqadiisa dhammaan raad kastaahi uu leeyahay waa uu iska inkirayaa wax kasta uu lahaa waxa uu ka cuskaday miinka mana u harin jawaab kale oo aan ka ahayn aniga xitaa Qoslaaye maahi inuu dhaho ku qor meesha mobilkaaga waa 22 bisha fariin laga diray markuu habeenkii falka dhacay asoo caadi ugu jawaabay meeshan dood inta la macna meeshan waxa ku qoran ku dhahay jeebada qolkayga gay boobsi ku qoran qoonaan u dirta fariintaas adaa diray macna loo mobilka qof kale ha diray gudoomiye mobilkaas aniga aan leeyahay hadda gacanta ku hayso do 40 bari iga maqan aniga gacanta kuma helin waxa ku qoran wax aniga meeqa maal loo ka maqan muddo 40 bari iga maqan goor meel ugu xiraaday aniga waxa leeyahay 25 bish 22 bish oo fariinta waxa la diray 40 bari ka xagga waa macna meesha waxa ku qoran 40 bari ka xagga ma fariintaas aniga ma qorin shaqalku maskarada ma isticmaal jirtay maskarada meesha maskara laga sheekay
mudana gudoomiye aniga wax maaskaraha isticmaala male qof muuqda ah qof qarsoomaay sarkaal buluuska ahay wax maaskaraha aniga aan isticmaala ma jirto shaqadan kuma lihi waxyaalahaas kale la mid ah muqaadaraadka hadda meeshaas yaallo waa ku tegaynaa muqaadaraadka maaskarada laakiin naga bixi horta maaskarada aragtayda naga bixi maaskarada meeshaas muuqaal oo waxaa la soo bandhigay gaarigaaga oo meesha u istaagaya qof oo meesha ka ganacsadane maaskarada uu sameynaya qofkaasi taleefon lambarka lacag looga diro maaskara laga gado leeyahay qof gudoomiye aniga qof aan maaskara ka tusho ma jiro nimankan xeraalinta ah wax badan aan isla marnay kiiska waxaa maya adiga waa ka jawaabayna bis xeraalna iska dhaaf caadi ugu joog maaskaradaasi inaad ninkaas ka gadato meesha tagtay oo lacagta dirtay oo transactionada ama dhaqdhaqaaqa lacagta la diraayo mobilada laga diraayo lambaradaasi oo lambarka inta ku jira laga diray ma jirtaa mise ma jirto aniga hal lambar aan leeyahay lambarkii shanta akoonka lacagta usoo dhacda waaye wax lacaga oo maask lagu talo aan ka diray ma jirto aniga waxaan wataa lambar furaha eber 65 51 41 74 habeenkaasi waxaa seexdaa tiri gurigeyga qofaa la wareystay meeshaan hoteela yarka ka shaqeeyay ninkaasaa noo yimid uu dhahay waana seexday meesha iyadana beemiya ama sida gudoomiye qofka horta meesha soo taajiyay waa dhageysanayay hadalkiisa wuxuu goobta ka cadeeyay inuusan aniga igaranaynin uusan si gaar ah aqoonin magaciisa saddexaad uusan aqoonin wax xirfad guud naga dhexeen lambarkayga aan lacag u dirin aniga mas'uul ahay qof mas'uul laga yahay haddii hotel aan kireysanayo ama aan guri kireysanayo aniga dukumenti qorayo ama lacag dirayo maxkamaddu wuxuu u sheegay ninka yarkii inta soo istaagay inuu ku yaqaano meesha maqaayadii lahayd oo imaa jirtay saas darteed adiga soo wacday adigii koox aawday balse lacagta qof kale uu diray saas uu sheegay waxaas wax ka jira ma jiraan anigana ninkaan aqoon u maleeyahay asaguna aqoon u ileeyahay ma jirto hadduu aqoon u leeyahay halkaas inta soo istaagaya abtiriyo hana sheego meesha ugu bartay iyo gaarigii marxuumka waa laga soo tegey agabkiisii sida kombyuutar apple iyo ibad biyodegeenka fagax ayaa lagu shubay halka kuwa kale waddada ay ku xooreen sida furaha gaariga iyo teleefonadiisii gaarka ahaa marka laga reebo xasan dhiidhiin inta kale hotel muqdisho taleex ayay degeen xilliyadii salaada subax agaheeda markaan waa markay soo laabteen markii ninkii halkaas la dhigay oo ceelkii uu ka soo fashilmay oo ceelkii gurudaan ay dhici weysay ee meesha iska dhigeen soo kala ordeen waa goobtan ay ku soo laabteen goobtan intee waa marka goobtan waa goobtii lagu ruday kombiyuutarradii saacadihii boorsadii wixii dhammaay waa warta fagax waay markay soo galayaan waa kana gaarigii quslay gaarigii oo marxuumku waa la soo tagay gaarigan waa gaarigii eedaysana quslay waay asiga ayaa wado waa uu gudbayaa dib uu soo laabanayaa waxaad arkaysiin asigoo meesha ku rudayo waxaana ku rudaayo sida uu qiraalka yahay eedaysana xasan dhiidhiin laakiin yaa ku rudaayo amarkii odharka dhan waxaa iska lahay eedaysana quslay waa kaasaa halkaas waayo goobta ay taagan yihiin goobtaas ayuu gaarigi istaagayaa leer ayaa qaban doono waa la arkaa caadi loo arkaa waa kan gaarigi waa kana asigoo fagax soo galaya waaye markaana waa muuqaaladani waa muuqaalada ay duubeen kaamirooyinka hay'adaha ammaanka waay muuqaaladan lowlaa muuqaaladan jar lehen lama heli lahayn caddeemahan iyo exhibitkan marka waa kana gaarigiis waa kana waa uu soo socoyaa waa gaariga eedaysana qoslaaya waaye waa kaas meeshuu ku gudbay wartii ayuu aaday marka iskooska fagax waa ka marka uu soo laabtay waa kan asiga waa gaariga eedaysanaha waaye halkaas ayuu istaagayaa iskooska fagax markay ka laabanayaan oo la dejinaayo xasan dhiidhiin la dejinaayo xasan marka la leeyahay motor raac waa sidoo hadda ay maxdalka ay ka sheegeen halkaasuu taagan yahay gaari ayaa qaban doono iftiinkiisa waa arki doontiin gaari weyn ayaa iftiimin doona halkaas waayo goobta uu taagan yahay gaariga eedaysana qoslaaya waa kaas taargadiis waa kaas taargada waa nadiif caadi loo arkaa waa kaas mudul gudoomiye halkaas waa goobta uu taagan yahay gaarigaas weyn ayaa iftiinaya markaas waxaa la dejinaa xasanaa la dejinaa oo naga deg la leeyahay mudul gudoomiye markii la dejiyey xasan waxay soo aadeen dhanka iyo hoteelkiina ku geynaa rabnaa marka waxaa la imaaday iskooskool wadaag baaritaankii
ayaa la marsiinayaa askariga shaqadiisa ayuu gudanayaa baaritaanka ayuu marsiinayaa kaarkiisa ayuu fiirinayaa wuu fasaxayaa kadib inta u socda hotel muqdisho iyagaa qaraal inay tageen waxaa keena marqaati caddeynayo oo reception siise ah inuu asiga soo wacay waa la gudbay marka iskooska dhanka waxay u aadayaan dhanka sayidkay u aadayaan haddana kaamirada sayidkaa qabanayso kaamirada sayidka halkaas ka qabanayso halkaas ayuu soo baxayaa kaamirada waa kaamiradii jidka oo Makal Mukarrama ku jeeday ee sayidka korkiisa saarneed waay leerkaas soo ifaayo waa leerkiis waay jagboontiga meesha isku yaal ayuu soo marayaa inuu gudoomiye waa kaasaa gaarigeeda sida qoslay waa kaasaa isagoo jidkii Makal Mukarrama ku soo dhacaayo dhanka sayidkan ugu soo dhacaayo sidoo kale waxaa soo bandhignay isagoo howlwadaag lagu baaraayo oo dhanka sayidkan uu soo jeedo marka haddaad arkaysiin dhankaan u laabana dhankaan soo ma aadaya dhankaan u laabana wuxuu aadayaa hotelkii lambar 4 uu aadaya waa kaas waa gaarigii eedeysan qoslay gaariga caddaay waa wax kala ma wadna wali waa gaarigiisa saxda ahayo asiga u lahaa saacadana waa kaas saacada waa 10 saac 12 daqiiqo 10 saac 12 daqiiqo ayuu iskooska sayidka ku gudbo waa kan marka waxaa la imaaday si loo soo socday hotel Muqdisho ayaa la imaaday hotel Muqdisho ayuu xafiiska xiraalinta baaritaan ahaan u tagay hotelka ayuu booqday receptionist ay la kulmay oo Maxamed Caabi warsame la yiraahdo oo uu hor keenay maxkamadda qolalka ay seexdeen waa qolka 404 uu seexday ee san qoslay qolkan asaas seexday waa 404 asaga seexday mudane gudoomiye qolkan waa qolka seexday labada eedeysan Maxamed Cadaawi Yaasiin labadooda qolka ay seexdeen waaye waxaan u ijaaray oo wada ijaaray qolkan lacagtii liiban $40 waay waxaa bistooladii dilka farqaha loo geliyay sargaalkan waxaa laga soo qaatay mid kale uu hore u haystay waxaa jirtay biskooladoo markii siiyey muddo adiga bilooyin aan iska haystay markaan haystay bistooladaasiitii ima uusan ii weydiinin saan u haystay muddo isoo wacay iyadoo laga joogo marka falka uu dhacay maalinka ku xigo wuxuu yahay biskooladaa u baahanahay ii haysid waxay ugu haysto ninkii lahaaye waayahay aan dhahay oo kusiinaa xaafadeeda way ugu imaaday marka waxaan deganaa qaybta furayaasha horta nabadda halkaas way igu yimid gaari soo wato wuxuu yidhi waxaan u baahanahay biskoolada si waa u dhiibay mid kale oo Belgian oo ii dhiibay midaan sii hayso midaan ka qaadanaa way marka aniga mana aan ka shakin taliyaha saldhiga fal geysanay amba waxaas ku kacay isma aanan dhahin sidee ku aamin marka nooceed ani mid ahay waxa waaye mid Belgian oo weyn ah waaye mid oo ii keenayna waxa waaye Belgian oo dhaxda xidig ku leh oo ku yarka Belgian taana waaye oo 15 qaad ah goobta uu kan waxa furiyaasha aniga kule gaariga gadaal bensilka kor u qaadneed laakiin shirka waxa u saarnaa qawane jeebadii fariimihii iyo wax kastoo raad ah waa la farsameeyey waxaa la dhex galay shaki in fariimo la isaga hanjabo kooxda dhexdeeda taasi oo ku soo dejisay dhammaantood cabsi markii marxaladda sarqaanka ahayd ay ka gudbeen waxaa soo dhowaaday saacadaha qabashadooda waxaa dhammaystirmay caddeymaha ku gadaaman kooxdan waxaana galay dareen cabsi ah oo ay xitaa isku sheegeen inay isdifaacaan oo taliyahoodii qaybta xataa ay ka tustay Korneyl Macalin Mahdi inay baas hoos ugu dhigaan sida ku cad fariimahoodii u dambeeyay mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh fariintan eedeysan qoslay wuxuu u diray eedeysan qoone goormo u dira 25 bishii ayaa kiiskii fashilmay 23 ayaa waxa la soo qabtay eedeysan Xasan Diin isaga ayaa warbixin bixiyay warbixintii uu bixiyay ayaa loogu tagay waxa uu tagaayo taliyihii guud ee gobolka Banaadir iyo taliyihii qaybta bari Macalin Aadan halkaas markay tageen eedeysan qoslay wuxuu isku diyaariyay in uu dagaalamo ayakan uu laayo hore wuxuu u dilay marxuumka u dilay markaan wuxuu diyaar u yahay in labadii taliy uu laayo xabad uu mari muxuu leeyahay meesha maxaa ku qoran meesha wuxuu leeyahay qoladaani haday waa ka shakiyay diyaar iyo ahaada qoladan waa ka shakiyay
diyaar iyo ahada hoos maxaa ku qoran sheeko macmaac ah hadday ila yimaadaan baxa ayaan dhihi rabaa ii yeeraan dhihi rabaa marka ciidanka ii diyaari iina soo dhaweeyo leeyahay wuxuu rabiyaa ciidanka degmada iyo staafkiisa inuu dagaal galsho oo macalmaadi macal aadam meesha ku dilo waxa uu ka shaqeynayo waa waxaas waa dadkii mas'uulka ka ah gobolka Banaadir wax laga weydiilayo dadku xabadeenayo isku diyaarinayo waxay ku cadeynaysaa dhiigga ummadda Soomaaliyeed halka uu ka gaarsiisay ee sanad koowaad aniga waxa ahay madaxa dimi baaraha saldhigga Hurwaa saldhigga ka tirsan haweenkii oo falka dhacay haweenkii ka horeysay waxa ay maaday taliyaha saldhigga Qoslay wuxuu u weydiistay jeebo taliyaha saldhigga ahaa maadaama jeebooyinka ana gacanta ku hayay maxaabiistan aan ku qaaday maalmo ka horeysay jeebadu oo keenay waxaan ku dhahay taliya maanta waxaan aqsantii caawiya soo xiriirta markaas wuxuu dhaw wiil la dhashtay oo walaalkii dhaqaacilkii rabaa waasiyay halaas la ogaanay waxaa la soo celiyay haweenkii oo falka dhacay maalinteeda riboodka xoogaa oo soo gaaray in warbixintaas jirto tuunkaas la qabo anoo taas ka duulaamay haddana maxaabiista waxa u waday in keena rabay maxamed jajab oo loo soo wareejinayay jeebadu waa u baahday markaasaa ka qaataa weydiistay meel goobjoog ku weydiistay dad marqaatiyaal maadaama jeebada tuunka aan qabo in jeebada kiiska ku jirtay meel marqaatiyaal ku weydiiyay waxaa dhahay jeebadii haween iga qaadaa rabaa maxaabiista ku qaadaa sidaasaa ugu qaatay jeebada koox khubaro ah ayaa hor keenay maxkamadda ciidamada natiijada lahaanshiyaha bistooladda liibaan maxamed axmed ku isticmaalaha baasaboorka kenyaanka ah magacan laakiin leh liibaan maxamed cumar ayaa iska leh bistooladdan waxaana damiin ahaan ugu qoran dhamma Cabdi Fitaax Qoslaaye sida uu caddeeyey wakiilka Forensic Lab ee CID-da mudane gudoomiye labadii bishii saddexaad waxaa la ii keenay 2 bastooladood iyo fooq laga keenay goobta dembiga 2 bastooladood waxay kala ahaayeen lambaradoodu laba bastooladood oo lambaradoodu kala yihiin LA eber hal 46 iyo bastoolad ayaduna Belgium ah oo nambarkeedu yahay CN eber 9262 waxaa laga codsaday inaan bastooladahaas yani fooqa laga keenay goobta dembiga aan baaris ku sameeyo oo soo kala cadeeyo bastooladda laga riday fooqa baaristii aan sameeyena waxaa natiijadu noqotay oo ii caddaatay in fooqa laga keenay goobta dembiga laga riday bastooladda nambarkeedu yahay CN eber 9262 liibaan waxa uu xitaa xamar ku dhex joogay aqoonsi been abuur ah oo ay wasaaradda caafimaadka iska fogeysay mudane gudoomiye eedeysanaani waa qatar caliima waa nin certification badan waa nin aan caadi ahayn wuxuu sameystay oo been abuur ka sameystay wasaaradda caafimaadka inuu darawal ka yahay waxaan soo ogaanay oo daba galnay in wasaaradda caafimaadka ay ka soo warbixiso kaarkan cid iska leh yaa iska leh kaarkan waxaan soo ogaanay inuu iska leeyahay warqadii ay ku cadeynaysan wasaaradda waqtaasa ma naqaneelada liibaan weligiina ma arkin mana soo galaba liibaan darawalna nooma naqan halkaas waxaa ka cad certificationkiis iyo khiyaanada waddanka ku jooga liibaan maxamed xasan cusmaan 68 jirkan ku dhashay Cadaado ahna aabaha taliyihii Hilwaa waxa uu ka soo galay kiiskan inuu damiino maal ka ahaa abaabulaha weyn ee Dubai fadhiyo liibaan waxa uu ka sheekeynayaa in kaalintiisii ay soo dhamaatay ka hor geerida ganacsada Abuukar Kaabax mudane gudoomiye warqadaas nootayadu ku qoran tahay wiil yar oo aan abti u ahay oo ay wada shaqaynayeen maxamed axmed nin la yiraahdo maxamed axmed Kaabax ayaa wuxuu yiri waxaad iga noqotaa dabiin ninkii dabiinta iga ahaaba iga tegay sidaas darteed waxaan ka noqday dabiino maal haddii uu wax
lacaga uu yacni intaad wada shaqaynaysaan uu shirkadda ka isticmaalo ama ka lumiyo intaad wada shaqaynaysaan aniga ayaad isoo weydiinaysaan marka xilligaasaa isugu kaya dambeysay wax ka dambeeya oo xiriira oo aan maxamed axmed iyo asaga midna yeelanay ma jiro waxaa kaloo la ii sheegay inuu shaqada ka tegey sanadkii 2023 bilihii horreeyey inuu shaqada ka tegey haddee adiga wixii uu ka xisaabtamo oo yidhaahda anaa laygu leeyahay oo hadda lagu yeesho qiran yahay waxaa aan dabiintay ka mid tahay laakiin aniga ninkaasi wax xisaab ahoo lagu leeyahay iima sheegin shaqadiina waa ka tegey waxyeelada kale iyo falalkaanina isagoo aan shaqaynayn oo ay burtay dabiintaydii isaguna iska tegey ayay yimaadeen wax shaqaan ku leeyana mudane gudoomiye ma laha xafiiska xeerlaalinta oo cadeymo muuqda la gola yimid ayaa ugu dambeyn hordhigay garsoorka wax kasta oo aan suuragal ka ahayn sargaal lagu aaminay howlaha qaranka sida CCTV kaamirooyinka amniga oo door weyn ka qaatay muujinta dhagarta imtixaan ilaa Imaaraadka Carabta waxaa xitaa halkan yaala dhalooyin qamro oo cembaceen ah korna u dhaafaysa midiiba qiimo ahaan $100 mudane gudoomiye meesha ugu muhiimsan ee ugu daran ugu xun waxay tahay dhammaantood waxay cabsanaayeen qamrigaas ay cabsanaayeen qamriga waxaan rabaa inaan u sharax maxkamadda hal dhalo kamid inaan u sharax waxyaabaha ku qoran mudane gudoomiye waa yaabaysaa waxyaabaha ku qoran tan oo kale maxaa ku qoran John Welk ku qoran red label ayaa ku qoran marka dhalooyinku waa kuwaana White House ka isticmaaleen habeenka watan mudane gudoomiye Tigris ayaa la yiraahdaa waa qamro mudane gudoomiye Jack Daniels ayaa la yiraahdaa iyana waa qamro oo goobta laga soo qaado wax wali dhow ma ahan waa ku dhawaad 50 xabbi wama saada waaye cagaartan waxaa la yiraahdaa black and white ayaa la yiraahdaa goobta ayaa laga soo qaaday waa nuucba nuucay ku dhiibay macnaha markii aad gacanta la sii gasho nuuc cusub arkay macnaha mudane gudoomiye tan waa mid hadda aan soo bandhigayay waxaan dhan waxaa laga soo raray qolkiisa iyo saldhiga uu maamulay qolka marka saldhiga waxaa ku yaalo laba qol uu seexdo taliyaha saldhiga uu dega mar walba taliyada magacaaba ayaa dego saldhiga dhexdiisa iyo qolkiisa dhexdiisa qolku dhex degan yahay macnaha saldhiga laba qol ku taalo inta kalena waa saldhigi iyo dadka lagu xiraayo waa saldhiga banaankiisa iyo saldhiga qolka gudaha asiga uu degan yahay aa laga soo dhex qaado waxyaabihii laga soo dhex qaado waay saldhiga dhexdiisa marka ay weydiisana caadiga ka taabo taliyana cabjiri kuleey askarta caadiga ka taabo taliyana cabjiri kuleey waa booliis waa taliye dhamaayo saldhiga waay saldhigiisa dhexdiisa ayaa qamrooyin buuxan isaga ayaana la leeyahay la dagaalan isaga ayaa xashiishka iyo dadka soo qabto xafiiska xeeraalinta keena oo maxkamadaha isaga ayaa nacabayo dhalooyinkan waa meesha waxa laga soo qaado gurigiisa dhexdiisa iyo meesha uu ka degan yahay saldhigaas waana waxa uu cabi jiray waana 50 dhalo xafiiska ayaan soo bandhigi doonaa marag muujinta aan haynay kamid tahay sidoo kale iyagana waa qiraal waxay leeyihiin anaka ayaa cabi jirnay waa dhalooyinkaas tirada badan waay xafiiska xeerlaalinta ayaa maxkamadda ka codsaday in wadajirka heshiiskan dilka ah laga tusaaleeyay xilligii amiir cumar ibn khadaab allaha ka raali noqde oo dhammaan kooxdan loo diray xagga hoose waa kuwan cabdicasiis cusmaan faarax cabdiyare maxamed cabdulaahi khaliif iyo jenaraal buule kamey markhaatiyaalkii la hor keenay iyo cadaymihii dambi muujinta iyo isugu jiray sawirada iyo documentiska ayay maxkamaddu dhageysatay dhammaan markhaatiyaalkaasi dokumentiyaas markii la isku daro waxay ka marag furayaan shakhsiyadda xun ee ninkaas taliyaha saldhigga uu samaynayay mas-uuliyaddaas mid u qalmay ama u dhowaan kara ma ahayn waa wax fantastiga weligay booliiska waxaan ahaa 73 baan qortay booliiska
ilaa maanta weligay taariikhda waxaanan arkin waaye nin taliyo saldhig noqday oo noocaas u dhaqmaaya waa aadanaha waxyaaba cajiibkaa mararka qaarkood lagu arka waa sababta keentayna waxaa waaye tababar ma soo marin wax lama barin adrituur waa lasoo qabto waa lagu soo dhex daray taliyaha saldhigga wuxuu wareegtay daa'iro meeshii ugu dambeysay oo 360 digrii wax ka dambeeya ma jirto macnaha sababtoo ah wuxuu isku rogay dilaa arxan daran oo khatar ah oo profession ku ah asaasinka iyo dilalka qorsheysan waxaa taas kuu daliila mudan gudoomiye qaabka uu u fuliyey falkan qaabka u fuliya kuu daliila mudan gudoomiye wuxuu ka leexday markii koowaad xilli maalin dhan waa ka leexday falkan inuu fuliyo wuxuu isku aadistay habeen oo dadkii ay wada seexdeen oo qof kasta gurigiisa ku nagaaday oo ay muxuu ahaa magaalada mugdi tahay ayuu afduubkii sameeyey waxaa kaloo kuu daliila mudan gudoomiye khatarta uu leeyahay eedeysanaha markii uu afduubka sameynayay wuxuu isticmaalay dareeskii ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu isticmaalay jeebadii ciidanka booliiska Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu isticmaalay face maskiga ay ciidanku isticmaalaan oo maskaraatiga ah wuxuu ka tashay Muumin Taylor sida hadda CCTV-ga meeshan ka daawateen habeenkaas habeenadii ka horeysuu tagay lacag $15 uu diray horumarisa 10kii kale hal saac kadib uu diray transactionkeeda waa soo bandhignay background-kooda dhammaan waa baarnay qof ku howlgali jiray ma jirin face mask habeenkaas ayaa loo tashay in falkaas loo geysto mudan gudoomiye markii marxuumku la afduwanayay waxaa la saartay baabuurkii qoslay baabuurkiisu saartay laakiin taliyihii saldhigga waaye waa la yaqaanaa baabuurkiisa wuxuu sameeyey taargadii ayuu ka furay taargadii lagu yaqiinay wuu ka furay si aan raad loogu helin oo leeyahay taliyihii saldhigga waa cidda marxuumka afduubatay mudan gudoomiye wuxuu ka waday degmadii uu taliyaha ka ahaa ee Hilwaa wuxuu geeyay Garis Valley waa dareemi kartaan wada dheer waaye checkpointiyo badan ku yaalo see ku suurta gashay marka inuu checkpointiyadaas dhaafo waxay ku suurta gashay taliye saldhig waaye kabtan uu labisan yahay dareeskii uu labisan yahay waa la yaqaanaa markuu checkpointiga soo istaagabo askartii booliiska salaanaysiina waa ixtiraame wuxuuna leeyahay maxbuusan wadaa si ay u wadaa saadarteed hal ii fudeediyo wuxuu geeyay Garis Valley wuxuu ugu talagalay markuu meeshaas geeyay in yaani maadaama degmadiisa laga yaqiin degmo ka fog inuu geeyo meel uu soo sahansaday oo ay deegaanka dadka degan ay ka fog yihiin ayuu geeyay wuxuu ugu talagalay waxay tahay mudan gudoomiye xabadda dhacaysa in aysan hay'adaha amniga aysan suspicious qaadin oo aysan ka shakin xabadda dhacaysa maxay tahay aan la dhihin saa darteed meel ka fog dadka deegaanka ayuu geeyay mudan gudoomiye intaas markaa fiirisid waxay cadeynaysaa madda khutuuratihi sida uu halis u yahay eedeysanahaas waxaa intaas kaaga sii daran oo inuusan arxan lahayn kuwa cadeynaysa mudan gudoomiye meel qashin ah korkeeda ayuu ku dilay waana uga soo tegay xitaa wuxuu ugu talagalay dadka ehelka ah inaysan helin dadka deegaanka helin bahalaha marxuumka meesha ku cuno weli intaas waxaa ka daran wuxuu qorsheystay ceelka meesha ku yaala inuu ku rido laakiin dadka deegaanka ayaa maalmahaas habeenkaas ka horeeyay iska xiray meeshaas maadaama dad badan ay ku dhaceen mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh taliyaha saldhigga taliye saldhig waaye isagaa ka soo shaqayn jiray maxbuus iyo eedeysano iyo crime asaa ka daba tegi jiray markaan asaa dembi galaya wuxuu ugu talagalay marka in aanan wax raada lagu arkin aan la daba kicin aan la arkin laakiin ilaahay ayaa garabkiisa ka baxay mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh ahdigii Umar bin Khattab fal noocan oo kala dhacay jamaaca ayaa ku heshiisay inay dilaan marxuum waa dileen Umar bin Khattab dhammaantood intii ka qayb gasho dhan tiirkuu geey waa toogtay hadal marka waa la weydiiyay marka dadkii way weydiiyeen waxay dhaheen Umarow sidee ku dhacday inaa hal naf u goysid dhowr naf markaasuu wuxuu yiri law tamala alayhi ahlu Sanaa laqataltuhum jamiican hadday reer ahlu Sanaa dhan ku heshiyaan dilkaas kulligooda waa loo tooga lahaa macnaheedu maxay ka dhigan tahay reer Muqdisho dhan hadda xamar inta ku nool hadday ku heshiyaan inay qof muwaadina dilaan
dhammaantooda waa loo fulinaa waa loo tooganaa culummada marka ahlu fiqiga hadalka cumar iyo ficilka uu sameeyey ayagoo tix raacaya ayay dhammaan waxay isku waafaqsan yihiin in hal qof loo tooga karo dhowr raf macnaha loo goy karo ayay isku waafaqsan yihiin laakiin hal shardi ayay u sameeyeen oo ah inuu jiro heshiis in falka heshiis lagu yahay saa darteed eedaysanayaashan heshiisha ku ahaayeen waxaa daliil ku aan heshiis ku ahaayeen eedaysanaha maqanaha ah waa ninkii fangareeyey dilkan waa ninkii lacag ku dhowaad $1,000 ku bixiyey in marxuumka la dilo waa marxuumka markii taleefanka khadku ku jiray markii la dhacay asaa dhahay akoonkan ma ahan akoonka kale ka fiirsha markii la dilay lacag $100 uu soo diray oo hoteelka lagu seexanay muxuu ahaa bastoolada dilka lagu geystay mudan gudoomiye waxaa iskale eedaysanaha maqanaha iskale liibaana iskale markuu dalka joogo asaa isticmaalo ay dhikaar been abuurahu wadada ku maraa oo wasaaradda caafimaadka ay leedahay markii uu baxna qoslay ugu tagaa bastooladaas ayaa dilka lagu fuliyay waxaa ku soo haray eedaysanayaasha kale shanta ah dhammaantood ayadoo isla jiraan ayay baabuurkii saarteen marxuumkii ayagoo isla jiray wateen oo afduubteen waxay geysteen galis baalley si wada jir ahay u dhaceen si wada jir ahay u dileen si wada jir oo arxan darro ah ay ugu soo tageen qashinka korkiisa marxuumka meydkiisa si wada jir oo nadiif ah ugu soo noqdeen waxaa intaas daliil ay kugu tahay inay muwaafaq ku ahaayeen dilkaas waxaa intaas ku dheer eedaysana qoslaaye waa ninkii lacagta $1,000 ku qaatay ku dhowaad in marxuumkaas uu afduubto uu dhaco uu dilo sidoo kale waa ninka naqshada dejiyey qaabka loo fulinayo falkaas ninka dejiyey waa sidoo kale waa ninka keenay in loo baahan yahay qof farsamo yaqaan oo lacagaha karibtada qof yaqaan sida loola baxo in loo baahan yahay maadaama lacagta la bixi rabo uu yahay lacag karibto ay tahay mudan gudoomiye eedaysana xasan dhiidhiin waa ninkii soo shirqoolay dabagalay subaxii habeenkii falka la fulinayo subaxeedii waxaa loo diray lacag $15 ah qosl ayaa u diray transactionkeeda waa soo bandhignay shidaaluu ku shubtay muuqaaluu duubay oo uu leeyahay meeshaanaan ku jiraa waa kanaa ninkii gurigiisa hortiisaan taaganahay uu jiifaa yacni dabagalkiisii xogtiisuu soo gudbinaya sidoo kale wuxuu sameeyey akoon perfect money ah oo loogu talgalay lacagta markii la dhacayo akoonka lacagta lagu shubi lahaa markii dilka la geysto la soo noqday waa ninkii warta muxuu ahaa ku tuuray laptoobyada marxuumka uu lahaa mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh cadaawe yacni marxuumka laga helay meydkiisa muxuu ahaa garis baalley cimaamadii ku duuduubnayd ninka iska lahaa waa cimaamadaas saa isticmaalo muuqaaladu tiktok uu ku isticmaalayay waa soo bandhignay isagaa iskale saa darteeda marka mudan gudoomiye dhammaantood waxay ka midaysan yihiin inay isku waafaqeen dilkaas tan ugu darana ugu anshax xunna waxay ahayd khamrigan ay cabsanaayeen oo maxkamaddan soo bandhignay khamrigan ay kulligooda cabsanaayeen khamrigan waxaa laga soo qaaday saldhigga laga soo qaaday qoslay guriga uu ka jiifa laga soo qaaday mid ka mid ahna baabuurkiisaaba laga soo dejiyey habeenkaas uu cabsanaa dhammaantooda qiraal ay ku yihiin arrintaas taliye saldhig oo saldhiggiisa mas-uulka ah oo loogu talagalay inuu dadkii deegaanka ahaa amnigooda uu sugo ayaa asiga bahal ku noqday marxuumku 2 jeer ayuu la xiriiray 2 jeer marna qaraxa dhacay wadada ku xirantay uu la xiriiray marna tarasbataala lagu qabsaday uu la xiriiray intaas maxay tahay taliye saldhig waa degmada uu isaga degan yahay taliye ka yahay uu maciin baday macnaha dhowr jeer uu lacag weydiistay lacagihii waa la siiyey ninka marka adiga lacagta siinaysa oo ku siinay inaa isla adigii ciidankii diyaarisid oo qorshihii diyaarisid oo dilkii aafulisid oo meydkiisa ugu soo tagtid meel qashina arrintaas waxay cadeynaysaa halista uu yahay eedaysanaha saa darteeda mudan gudoomiye fiqhiyan waxa ay qabtaa culimada in hal naf loo tooga karo dhowr naf saa darteeda xasan dhiidhiin waa ninkii soo shirqoolay waa jaajuuskii soo jaajuusay inta kale waa inta fulisay liibaan waa ninkii qarashaadka ku bixiyey saa darteeda maxkamadda sharafta leh iyadoo xeeraalyaha iga dambeyn doona waxaan codsanayaa inaan maxkamadda kusoo wareejiyo in lagu xukumo dil toogashaha 2 eedeysano oo si wada jira dilka u fuliyay waa eedeysanaha koowaad dhamme cabdifataax maxamed xasan qoslaay oo lahaa damaanadii bastool wixii dhammaayay soo sharaxay oo dhan sidoo kalena ahaa fangareeyii iyo fuliyii iyo waxa gaarigiisa lagu qaatay waa cadda arrintaas waxaan codsanaynaa eedeysanaha koowaad in dil toogashaha lagu xukumo 2 eedeysanaha labaad maxamed cabdi maxamed qoone waxaan codsanaynaa asigana in dil lagu xukumo number 3 ninkii ka weynaayo soo abaabulay oo ilaa Dubai
kusoo dawooda dabagalka iyo balaayadan dhan la soo abaabulay ee xanaaqii uu ka xanaaqay shirkaddii laga racday ee qorshaha dilkan iyo waxaan dhan iyo waqtiga ninkaas oo galaya sheegane waa eedsanaha saddexaad liibaan maxamed cumar asagoo maqane ah maxkamadda waxaa ka codsanayna inay disho oo dil toogasho ay ku xukunto eedeysane xasan maxamed siciid sidoo kale waxaan soo bandhignay dabagalkii asna uu sameeyey sidoo kale lacagtii laga distay isagana waxaan codsanaynaa in ay maxkamaddu ku xukunto dil toogasho ah waa eedeysanaha afaraad maxaa yeelay dabagalkii ayuu sameeyey dhiiqada asaa ku tuuray waa uu ka qayb ahaa waa uu dabagalay akoon ayuu sameeyey isagana waxaan codsanaynaa mudug guddoomiye inay dil ku xukunto labada eedeysane maxamed cadaawe cali iyo yaasiin cabdi jaamac oo doorkoodu u ahaa ilaalin iyo baabuurkaas ay raaceen waxaan codsanaynaa ayagan maadaama ay ka qayb qaateen in xabsi daa'in ay maxkamaddu ku xukunto eedeysanaha ugu dambeeyo waa eedeysanihii gacan siiyey eedeysanaha saddexaad oo damiinka ka ahaa isna waxaan ka codsanaynaa qodobadii aan ku soo eedanay maxkamadda inay ku xukunto maxkamadda waa mahadsantahay qareennada ayaa iyagana ku kala tega difaacidda muwaakiliintooda oo mid kasta ay ku dadaalay ka riixidda eedda xeer ilaalinta waxa ayna tusaale ka dhigteen orahdii sayidka laga wariye ee ahayd gacani waxay qaaday u qowlan tahay xaqiiqatan maanta dhan waa cabsanaya waxaan islahaa ma ogtahay waxaa la keeni doonaa almujamaad cadaymo iyo mushkilo la keeni doonaa laakiin ilaahay xamdigiis waxaan ka bilaabayaa horta aabbahan ka bilaaba oo lagu soo eedeeyey 297 iyo 306 sababta loo xiray waxaan ka ku maadsantahay inay xorriyad u banaanka isaga joogo sababta loo xiray sabab sharciga waafaqsan ma ahan maxaa yeelay dembiga dhacay waxba kama ogeyn kamana qayb qaadan lugna kuma leh ninka tegey baa damiin ka ahayd baa la yidhi damiinka uu ka ahaa waqtigeedu waa dhammaaday maxaa yeelay markii la ruqseeyo ku ekay waxbuu fududeeyey iyo maxbuus buu fakiyey iyo intuu ka baxay maxbuus lasoo qabtay ama eedaysana lagu daba jiray oo intuu u fududeeyey meel ka tuuray ma jirto laxduuba ma ogyahay sida awgeed anoo ixtiraamaya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabkiisa anoo ixtiraamaya waxay ahayd inay ka xishoodaan waddoonkaas yacni laa taziru waasiratu wisra ukhraa yacni haddii ay shirkadda xoolo ku leedahay dacwad badan ay furan lahayd shirkaddu dacwo ma qabto dilka dhacay lug kuma lahayn ninka kale meel kuma oga ganacsiga heshiiska lagu lahaay waa lagu kala baxay mar hore dembigan dhiciddiisa ka hor lilaahi tacaala maxkamadda sharafta leh waxa uu maxamed cusmaan ku xiran yahay ilaahay hortiisa waa sharci daro waxaan codsana horta inay xorriyaddiisa u celiso asiga arrinkiisa waaba soo koobayaaba maadaama aan hadda cadaymo asiga ka soo horjeeda oo inuu faldambiyeedka lug ku leeyahay iyo inuu cidfikii aan la keenin arrinkaas meeshaasaan uga haray insha allahu maxkamaddana aqbal iyo ijaabaan ka suga waxaan rabaa arrinta ku saabsan taliya ilaa la xukumo maxkamadda xilka ka qaado oo mutahim taliyihiisi buu yahay maxkamaddu marka waxaa codsana inaysan dhibsanin inuu taliyihiisi yahay weli marka ilaa maxkamadda kaa qaado waxaaga waa leedahay marka haddaan ku soo celceliyo taliyaha macnaheeda sharcigan waafaqsanahay waxaan rabaa meeshaan 3 dembi ayaa ka dhacay maxkamadda waxaan rabaa inay ila fahamto afduub baa ka dhacay waa u tacseenayaa ehelka iyo marxuumka dhintay ehelkiisa waana ka xunnahay in saasoo kale ay ku dhacdo waxaa ka dhacay meeshaan 3 dembi mid waa afduub mawakilkayga lug kuma lahayn meesha lagu afduubtayna ma joogin 2 askariyaa sheegata annagaa soo qabana le jidka u galnay soona wadnay kaas asiga lug kuma lahayn xaasha lil dembi kalaa dhacay burcadnimaa dhacdaa la yidhiyo qof baa waxaa laga shubtay xoolihiisii iyadoo qori lagu handada taana cid kala sheegatay inay akoonka samaysay inay lacagaha shubtay inay lacagaha xayirtay inay barnaamijka shaqa leedahay xaashaa lilah lug kuma lahan mawakilkay lambar 3 dilka qof baa sheegtay yidhi anaa dilay waa laygu qasba iyo waa layga iibiyey wax kala wa qof baa sheegtay oo yidhi anaa dilay xabaddan anaa ku dhuftay barqaatina waa lagu furay kaasna mawakilkayga lug kuma laha iyadana maxaa yeelay
sayid maxamed cabdulla xasan waxaa hadda ka hor la yiri 21 sano dadka leenaysay soo aqri meelaad gashay marabtido wuxuu yiri weligii dooro ma bireen uu yiri gacanina waxay geysatay leeda ha waa sayidkii wuxuu yiri weligii dooro ma bireen marka ciddii wax dilaysa ayada wax dishay marka dilka laga hadlaayana cidda geysatay baa iska leh sida awgeed muwakilkaygu dilkuma laha gacanta taliyaha qoslaaye gacantiisa waxba laguma dilin waxna laguma qaadanin exactly sida runta laga hadla saas waay waxay dhahan dil ha lagu xukumay dhahan qosla haddii dil lagu xukumo dadka dhan la dilo waay maxaa yeelay waxaa la rabaa concreto barooba concreta la rabaa hebel baa hebel dila ana arkaya markuu dilayo iyo ninkii inuu yidhi anaa dilay iyo camera la keena soo dilaa la keeno waayahay waxaan rabaa barooba concreto dil iska dhaafa xataa wax u dhow lagula kaco meeshaan kama jiro qodobka 199 wuxuu qabaa xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu qabaa eedaysala dambi wada galay in marag la warsan karo laakiin hal dhinac kale marag waa wada galay kulligeenan ahayn nabadaanan ahayn saasaan ahayn raaliyan ku ahayn waa ku shirin waa ku showrin dacwo ma qabno jid waay laakiin haddii qolo dabcad inay fakato oo qolo kale ku kiisto waxaan rumaysanahay annaga iyo muwakilkaygaba waxaan rumaysanahay wiilashan program baarista lagu geliye waaye inay dhahaan taliyaha ku dar halkan waxaa lasoo dhoobay alcohol la soo dhoobay xafiiska xeralyaha ciidamada qalabka sida waxaa laga yaabaa in fiqigu ku yaryaha laga yaabaa waxaa la rabaa qodobka 52 iyo 53 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed haddaad guri cid leedahay fatashayso waa inaad amar maxkamadeed haysataa waa inaad aadaysana gurigiisa la fatashaa kula socdo meelaha waxaa laga soo qaaday maxaa la mala xiraab waxba nama qorsayaan weligeena maan arkin maxaa yeelay markii gurigeena lagama soo bixin anaa fur lay dhiilahay qolka soo badegan aniga waa la soo waday fur inta fala garansa wixii wala soo xaabin lahay barnaamijka oo xafiiska xeralyaha ku keenay ma waafaqsana 163 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed shayga waxaa la rabaa in la igu dhajiyo kool ahaan la igu dhajiyo mala awaalka wax meeshan ka dhacay waxay ahaayeen fantasy waxay ahaayeen seminar bay ahaayeen waxay ahaayeen wixii la dhihi jiray indha sarcaad sawirro meel lagu soo dhigay warqado orday macno male lacagaha la isu dirdiray lacagaha maxaa inta yar la isu diray laga soo hadlay 3 sano lacag la isu diray oo ilma abreed waa hooyadiis soo dhashay hadday xeraali wuxuu dhahay wadaadka adoogahay aqoon uma lahayn ninkaas islaantiisa la taaba dhashay soo aqoon lahayn ilma abreed waa hooyooyinkooda wada dhashay liibaan iyo qoslahay ilma abreed waa waxay macaamilaan 10 sano waaba joog jireen wax barbaleeni kama jirin marka haddii aniga maanta la fatasho dad badan oo loo baahnayna laga helaan lacag u diray ama lacag iisoo bastoolada wax lagu dilay nin baa lagu helay baa liiray oo waday ninkii sheegay ma dhaafto waaye sharcigu saas ma hayn miya ninkii sheegay ma dhaafto waaye hebel ay ga bedeshay hebel astaan yeelay no waxyaalaha qaar ninkii sheegay ma dhaafto waaye bastoolada intii wax lagu dilay waaye gacantiisa yaa lagu qabto qofka lagu qabtaa leh waxa looga soo tagay waa sabab oo duulaan waxa lagu yahay muwakilkayga kaliya arrintaasi arrinna qabata maaha arrin waxaan rabnaa maxkamadda iyadoo nooga aqoon badan xaqiiqaadka dembiyada say u dhacayaan wixii caro ah iyo wixii dadaal ah iyo wixii ammaanka hala sugaayo waa gar laakiin qofka halaka man halaka can bayina shay la kor saaray inuu jiro waayo oo cad mala awaalada iyo suufkii xanjeel isku dhadhajiyey iyo ma jirto bastoolada oo gurigiisa laga soo qaadatay wax lagu dilay maahan asigana ma lahayn teeda kale ma jirto saxiix iyo suul uu leeyahay oo bastoolad uga soo dambeeyay liibaan xaqiiqatan maxkamadduna ayada baari doonto ku filan kabkab waaye kabkab waxyaala qaar waa laga dhaaran karaa kabkab waaye hal shay oo concrete kuma jiro hal shay oo maantay qof in lagu dilo mudan aniga $60 la iisoo diraa laguma toogan karo yaa iisoo diraa maxaara may laguma toogan karo gabagabada waxaan ku bilaabayaa horta aabbaha haddaayaan sheegay si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed horta aabbaha haddeer inuu raacaan codsana markii hore waa ila socday oo ana keenay
maxkamadda sharafta leh taas oo xorriyaddiisa loo celiyo maadaama uusan arrimahaanba laxduuba moogyahay arrimaha u koonayn waxaan ka hadlaa qoslay haddii maxkamaddu ay siin doonto word ama kelmo ay siin doonto gaar waaye laakiin wax alla waxaa xafiiska xeerlaliya guud uu ninkaas ka keenay kulligood hadday yihiin qoraal hadday yihiin cajal socota hadday yihiin malawaal hadday yihiin waxay idan siiraadeen kulligood kabkab waaye frame wada wax sugan oo ama qof lagu dili karo ama uu asbuuc ku xiraan karo meeshaan lama keeni maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaa mawakilkayga si waafsan 122 in xorriyaddiisa loo celiyo maadaama uu barii'an yahay maadaama waxa meeshaan la keeno dhan ay kabkab yihiin oo ilaahay hortiisa hal shay oo lagu dhaaran kara uusan ku jirin maxkamadduna maadsan tahay saas darteed mudane gudoomiye garsoore qiraalada laga hor akhriyey maxkamadda horteeda dhammaantood aan oranay maxamed cadow qiraalkiisa wuxuu ku sheegay inuu asaga dhigiisa ku maqlaahayay qoono oo leh war dilkiisa maxaan ku falaynaa qiraalkiisana waa ku jiraa dilkiisa maxaan ku falaynaa marba haddaan wixii rabay laga qaatay maan iska sii dayna gaarigiisana ku celi sidoo kale qiraalkaasa uu qirtay oo leeyahay dilkuu qirtay sharcigu wuxuu u ogol yahay haddii qofka lagu cadaadiyo ama lagu dhibaateeyo uusan qiraalku waafaqsaneen 68 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed inuu ka laaban karo dacwadda inta aysan dhammaanin ka hor xukun laga soo saaray sidoo uu qabo qodobka 108 faqradiisa labaad maxkamaddana inay la aragtaan rajeynaya muwakilkeeya doorka uu ku lahaa oo ah in gaariga lagu qaaday eedaysan dhibanaha ama marxuumka Allah u naxariiste in goobta la geeyay markii dambe uu dood ka keenay dilkiisa intaas asaga maxkamadda horteeda ka qirtay waana qiraal mar hadduusan lahayn gaariga lagu qaaday marxuumka Allah u naxariiste mar hadduusan lahayn biskooladii lagu dilay mar hadduusan qorshaha ah in marxuumkan nafta la dhaafiyo uusan asagu qorshaha u jirinba oo san soo suuraysan xataa waxaa la dhihi karaa aada ah inuu geystay dilka baraarka cad oo gacantiisu ku dilay ah inaysan waxba ka jirin baa la dhihi karaa saa darteed mudugudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa anigoo u daadegayo gunaanudka eedaysanaha inta keliya oo maxkamadda maxdarkeeda doorka hore ee xeeraanta doorkeeda ee lahayd uu ka maqraati kacay u dhahay intaas baan sameeyey oo aanan ku jirin dilka in loogu khafiifiyo maadaama uu ka shaqeeyey cadaaladda oo ah qofka eedaysanaha ah hadduu dhibku geystay si sharaf leh maxkamadda horteeda uga hor qirto asagoona meelmeerinin asagoonan maran habaabinin in lala aadi karo qodobka 40aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadduna maasanta mudane gudoomiye garsooreyaal ugu horeyn is-hortaagii aan ka muujinay inkastoo aan lagu qancin xafiiska uusan nagu qancin laakiin nuxurka eedda waxay ahayd afduub xasan aalad uu wax ku afduubto gacantiisa kuma jirin mana haysto waxna ma afduubi karo afduub waxaa afduuban karo qof awood iska leh isla markaasna aalad uu wax ku afduubto gacantiisa ku jirto meeshaas xasan waa looga gafay marka labaad waxaa lagu sheegay burcadnimo burcad waxaa noqon karo 484 waa naqaanaa nin hub inta qaatay waddo galay si burcadnimo ah waxa u dhacay aan noqon karo xasan ma ahan burcad waddana ma galin dadna ma dhicin mana waxyeeleen sidoo kale wuxuu lagu eedeeyey dil maanta lama horkeenin maxkamadda horteeda xasan inuu dil geystay xafiiska xil ilaalintana ma aysan sheegin markhaati loo keenay in xasan uu sameeyey fal dil ahna maba muuqataba xaasha lilah marka
intaas waxay caddaynaysaa inuu beri ka yahay sababtoo beri uga yahayna waa tilmaamayna maadaama aysan lahayn qiraal cad oo la sheegayo la muujin karo maadaama qiraalku uu yahay qiraal aan informal formal ma aha qiraalkan informal way because ma aha lambarkiisii protocolka looma isticmaali karo waxaa loo isticmaali karaa maanta waxa xasan inta uu ka sheegay intana waxa uu ka sheegay hadday waxay ahayd in la qasbay in baabuurka la saaray inuu raacay inuu maxkamaduba u bayaaniyay waxay ahayd xafiiska xer ilaalinta inay isticmaasho 112 eeda in lagala noqdo xasan loo adeegsado kiiskan marqaatigiisa lagu dhiso taasaa qurux badnaan lahayd nasiib daro ma dhicin halka uu qareenka saaxiibkay leeyahay waxaa sheegay xasan anagaa difaacaynay maxdarkaa laga dhagaysanayay afkiisa kama soo bixin taliyaa baxay iyo kanaa baxay iyo kama soo bixin taasna waxay ahayd mid lagu riixaayay muwakilkeena inaan ka difaacnana xaqa ugu leenahay mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh haddaa ku fogaaday intaas waxaa ku gunaanadayaa difaaca mar haddii khilaalkaasi oo muwakilkayga loo soo bandhigay aan loogu nisbayn karin mar haddii markhaati cad oo la horkeena maxkamadda aysan jirin oo dhahayo xasan dhibkaasuu geystay waxaa daliil u ah marka iftiimintii uu iftiimiyey dhibti meesha ka dhacday oo hay-adaha sharciga uu iftiimiyey ma fiicnayn kumana qumanayn waxaan is leeyahay xafiiska xeraaliyaha guud ee maanta macdarka jooga ee soo eedeeyey muwakilkeena inuu soo eedeeyo kuma habboonayn laakiin waa dhacday laakiin waxaa ilaahay bahadiisa maxkamad cadaalada hortaaganah dilkuusa qayb ka ahayn dhacuusa qayb ka ahayn badbaaduu sameeyey hantidii shirkadda u badbaadiyey akoonkii la rabay in lagu shubo lacagta laga saaro oo la waayo lacagta hadii akoonka laga saarayo lama arkeen waa diiday inuu akoonka lacagta ka saaro ilaa shirkaddii lahayd ay ugu timaado ee lacagtii kala baxdo waxaa daliil u ah lacagtana waa dhici lahaa ayagana waa qarin lahaa meeshu rabana waa aadi lahaa xaqii oo dhan buu caddeeyey xaqii uu caddeeyey marka inay ku soo xiraan xafiiska xeeraalinta ku soo eedeeyaan meesha markhaati ka adeegsan lahaayeen waa tacaddi ka yimid xafiiska xeeraalinta oo muwakilkeena ku dacdiyey waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa maadaama dhaca caddayn loo hayn markhaati loo hayn dil uu ka qayb u ka ahaa uusan jirin maxkamadda horteedana uu ka caddeeyey inuu afduubnaa wax dhib ah uu geystay oo hadda cid ku caddaynaysaana aysan jirinin wuxuu maxkamadda horteeda ka caddeeyey oo hadda maxdarka ka caddeeyena maxkamaddu ay dhegaysanaysay inay maxkamaddu wuxuu sheegay ay u tixgeliso xorriyaddiisana dib ugu celiso maxkamaddu waa mahadsan tahay sida 112 eed la'aan in ninkaad od laga qaado caddayn la'aan caddayn la'aan lagu sii daayo 115 maxkamaddu waa mahadsan tahay waxaa ilaahay mahadiisa maanta 2 saaca soo xaroonay hadeerna waxaa joognaa waqti 8 saac ku dhawaad ama 9 saac waaye xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sidoo khayr allah siiyo waa dadaaleen mowduuc badanaa la soo maray hal xiisadoo dheer waana la siiyey xiisadooyin kaleeto ku saabsan presentationka waana la siiyey waxaasoo dhan cilmi noo soo kordhawaay wax kale maaha ha ahaatee maxamed cadaabe iyo yaasiin hal markhaati intii markhaati oo meesha la keenay markhaatiyaalka meesha lagu soo qoray hal qof oo eedan lagu soo eedeeyey oo ka tarjumayso 458 460 461 484 74 dhammaantood ah iyo 434 hal xabo amba caddeen ku saabsan intaan qodoboon lagu soo eedeeyey ku saabsan maxamed cadaabe iyo yaasiin midna ma jirto beddelkeeda xafiisku wuxuu caddeeyey labadaas qof inay ahaayeen 2 qof oo staff ah jaaniskii koowaad oo xafiiska dhaaf waaye inay ka dhigtaan ay ahayd markhaatiyaal maadaama meeshuu ka dhacay fal aad u xun oo sharciga ka fog oo qof bini aadan in lagu sameeyay sa aheenin sidaasaa ku gaftay xafiiska xeer ilaalinta maanta waxay ahayd labadaas wiil oo goobjoog ah oo taliyaha staff ah u hay askarna aan aheenin shacab ah naftooda fiirsanayo xuquuqda yar oo asiga jeebkiisa ay ka helayaan oo kaliya
wax meel kale waxay ka soo galayaan isa jirin inay marqaata ka dhigtaan ay ahayd muxuu sameeyey hebelna muxuu sameeyey hebelna muxuu sameeyey meeshaasaa laga heli lahay marqaata saxna waa u noqon lahayd sababtoo ah ma jirin goob ay ka maqnaayeen oo habeenkaas dhacday min bilaaw ilaa dhammaad way joogeen oo waxay ahaayeen staff taliyaha staffka ammaankii dhan ayagaa ilaalinaya wax kalena uma ilaalihaynin taliyahoodii oo booliiska taliyaha saldhigga ah oo ayagaa soo maciin biday waqtigii la joogana ay tahay qof aad hubto wax u dhiibo oo asigaas u dhiibto amnigiisa ay ilaalihayeen darteed horta dhibkaan ay u mareen waana u xer yihiin waxaa kale ay soo hartay qiraalada wiilashaas yaryar qoraal ay sheegeen wax ay qirsiyiin oo ilaahay abuurtay oo qiraalada ku qoran oo ay leeyihiin anaa dembigaasa galay anaa saa sameeyey anaa dhibkaan geystay ninkaan hebel anaa dilay oo ay qireen ay qirsiyiin ma jirto beddelkeeda xafiiska xeraalinta waxay u muujiyeen inay markhaatiyaal ay yihiin markhaatiyaalkeena muu isticmaalan sii hora uu sheegay waxaa kaloo meesha taalo waa niman dhallinyaro ah aan ciidan ahayn ninkaas taliyahooda ah ayaa magac ahaan u soo dhawaystay qaraabanima loo soo dhawaystay saasaa wax lagu siinaayey wax kaloo meeshaas yaallo oo loo keenay amba loo beriga oo lagu haysto staff maxaad u aheedeen maahane dembi oo sii goona ay u galeen oo gacantooda ay ku geysteen oo xafiiska xeer ilaalinta 110 163 iyo 114 caddeemaha la soo bandhigayo dhan hal meel oo ku saabsan yaasiin iyo maxamed cadaabe marna lama keenin maxkamadda sharafta leh maadaama aan waqtiga aad isu dheeraaday aan daalanahay waxaa ka codsanayaa xafiiska intii as keenay oo aan ku saabsaneen maxamed iyo yaasiin inay diiddo maxkamad horta beddelkeeda maxamed iyo yaasiin inay xorriyadooda soo celiso ayadoo qaadanayso qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya maxkamadda sharafta leh waa mahadsanta kiiskan oo qaatay maalin dhan dhegaysigiisa kama dambaysta ah ayaa ugu dambeyn waxaa soo xiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho